kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda Sooma oo ah dallad ay ku mideysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa arday ka kala socday jaamacadaha gobolka Banaadir oo helay tababar ku saabsan muhiimadda nabadda iyo xalinta xiisadaha taagan. hoos u dhac laga dareemayo ganacsigii ku tiirsanaa xoolaha ee magaalada Kismaayo sababo la xiriira abaaraha daran ee ka jira gobolada Jubbooyinka iyo sidoo kale waxaa muuqata quraad gobolka si aad u badan loogu hayo aan xaqiijinaynin sida odayaasha dhaqanka ee ka socdaayo arrinka muqaawado ma xaqiijin karo doorashada oo inta badan doorashada hadda hooyinkooda oo qayb kama aha qoondadeedana aad la xaqiiqay. waa qaar ka mid ah dhagaystayaasheenna oo aragtiyadooda ka dhiibanaya sida loo xaqiijin karo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 30%. aan ku bilownay arday ka kala socday qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ayaa helay tababar socday maalmo oo ay ku qaadanayeen muhiimadda nabadda iyo sida loo xallin karo colaadaha iyadoo casharada uu bixinayay khabiir ka socday hay'adda u dhaqdhaqaaqda nabadda ee Ilays Nabad. waxa uu ku soo aadayaa tababarkan xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka dhacayaan isku dhacyada beelaha oo ka dhasha khasaaro naf iyo maalba leh. qaar ka mid ah ardayda tababarkan ka faa'iideystay ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo tababar nuucan ah ay qaataan, sidoo kalena ay arrintan ku dhiirigelinayso in ay ku laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen oo ay ku badan yihiin colaad beeleedyada si ay kaalin kaga qaataan sidii xal waara loogu keeni lahaa. Mahad Cabdi Xasan oo Muqdisho ku sugan ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa 40 arday oo barata cilmiga siyaasadda iyo maamulka cilmiga bulshada kana kala socday jaamacadaha Muqdisho ummadda iyo jaamacadda Banaadir ayaa muddo todobaad ah waxaa Muqdisho uga socday tababar ku saabsan ka hortagga colaadda iyo qiimaha nabadda ay leedahay. Cabdirasaaq Siyaad Xuseen oo ka socday jaamacadda Banaadir oo ka mid ahaa ardaydii ka faa'iideystay tababarkaas ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horeysay uu qaadanayo tababar noocan ah uuna dareensan yahay muhiimadda ballaaran oo ugu fadhiyo qiimaha kala duwan ee bulshada. waxa uu tilmaamay isaga 5 sano ka hor inuu ka yimid miyiga Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud halkaas uu ku waayay colaad qabiileed muddo soo jirsatay. xubno ka mid ah ehelkiisii oo ku jiro adeerkiisa oo ku dhintay sanadkii 2018 sidoo kale aysan weli maskaxdiisa ka go'in raadadkii xumaa ay colaadda uga tagtay deegaankiisii. Cabdirasaaq wuxuu qorsheenayaa hadda in xilliyada fasaxa uu dib ugu laabto deegaanka uu ka yimid halkaas oo weli ay ka jiraan dirirta qabiilka isagoo doonaya inuu qayb ka noqdo daminta xiisadaha jira si aysan u sii galaafan naf kale isagoo kaashanaya dhaqanka deegaanka. waxa uu Sooma u sheegay inuu dareensan yahay haddii uu deegaanka ka bilaabo wacyigelin ku aadan muhiimadda ay leedahay nabadda in laga hortagi karo colaadda ay wax badan ka tari doonto beelaha dagaalka ka dhex jiro maadaama uu qaatay intii tababarka uu socday sida loo xaliyo isku dhacyada hubeysan. maadaama aan hore u arkin manaha blaze nabad aan ku soo korin oo khalalaasi ku jireen meel aan ku soo korin si aan ugu faa'iideeyo dadkii manaha aan ka yimid anigu aan ka soo jeedo ama gobolka aan ka soo jeedo oo kale oo gobolada qayb ka mid ah gobolada uu khalalaasaha badan gobolada Soomaaliya. marka waxaan rajeynaa markaan halkan ka tago gobolka u laabto inaan micnaha wax badan ku soo kordhiyo oo la xiriira nabadda. dhalinyaradaas waxay ka soo kala jeedaan gobolada dalka oo colaaduhu ka socdaan, marka dhalinyaradaas soo abaabulan waxay qayb ka qaadan karaan xal u helista colaadaha ayagoo ku laabanaya meelihii colaaduhu ay ka jireen. Dr. Yuusuf Cumar Ibraahim oo loo wakiishay inuu bixiyo tababarkan ayaa ah gudoomiyaha hay'adda nabadda Ilays Nabad. waxa uu sheegay in ujeedada tababarka uu yahay in ardayda la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sida loo xaliyo colaadaha. waxa uu tilmaamay in ay jiraan baahiyo badan oo loo qabo in la sii kordhiyo tababarada noocan oo kale ah maadaama dalka qaybo ka mid ah ay ka jiraan colaad beeleedyo. waxa uu sheegay in gabdhaha iyo wiilasha qaatay tababarkan uu kula dardaarmay inay sii gudbiyaan cilmiga ay qaateen iyagoo xitaa adeegsanaya meelaha bulshada ay ku wada xiriirto sida internetka.
Dr. Yuusuf ayaa Sooma u sheegay in dhalinyarada la siiyey tababarka haddii ay helaan taageero ku filan ay tagi karaan deegaano badan oo ka mid ah dalka si halkaas ay uga bilaabaan wacyigelin ku aadan muhiimadda nabadda. waa dadkii nabadda gudbin lahaa waxay ku xiran tahay dhalinyarada kalba sidii fursad loo siiyo haddii fursad fiican la siiyo oo goobaha miyiga iyo tuulooyinka fursad ay ku gaaraan qalabkii loo sahlo ay xagga la tagi lahaayeen qalab waxbarasho ahaan qalabkii u fududayn lahaa mataqaanaa nabadeynta intii qayb weyn ka ciyaari karaan hay-adaha waxbarashada jaamacadka iyo iskuulaadka ugu badan baa mataqaanaa ku yaala marka maadaama bulshadii ugu badnayd ay ku nooshahay dee caqliga wuxuu keenayaa in tababaro badan lagu qabto laakiin gobolladana runtii in la tago iyadana waa muhiim markay duruuftu saamaxdo. Iftiin Cali Axmed oo ka mid ahayd 18 gabar oo qaatay tababarkan kana socotay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa aad ugu faraxsan in ay hesho tababar sidaan oo kale ah ka oo xal u keeni kara dhibaatooyin isku dhacyada qabiil ee ka jira meelaha miyiga ee dalka. Waxa ay tilmaamtay in markii ay maqasho colaad ay soo xusanayso geerida awowgeedii xubno kale oo ka tirsan qoyskeeda oo ku nafwaayay colaad qabiil oo ka jirtay deegaan miyiga ka ah Haradheere ee ka tirsan gobolka Mudug sanadkii 2016 xilligaas oo ay ilaalinayeen xoolo xirada u joogay. Iftiin oo dareensan ahmiyadda ay leedahay in si nabad ah lagu wada noolaado ayaa ku tala jirta iyadii saaxiibadeeda isku deegaanka yihiin soo afjaridda colaadda qabiil marka la gaaro xilliga fasaxa ee jaamacadda. Waxa ay sheegtay in haddii la helo tababaro noocan oo kale ah ay yaraan karaan colaadaha ka jira qaybo ka mid ah dalka. Waxa ay xustay Iftiin in sababta ugu weyn ay jaamacaddu uga dhigato kuliyadda siyaasadda iyo maamulka ay qayb ay ka tahay xalinta mushkiladaha isku dhaca ah ee ka taagan miyiga magaalada Haradheere iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug. Taa beddelkeedana dadka la fahansiiyo muhiimadda nabadda ay u leedahay nolosha iyo horumarka aadanaha. waxyaabo badan ka faa'iiday oo nabadda oo la xiriiro sida colaadda loo joojin karo oo conflict resolution loo sameyn karo. Wallahi waxay iga dhigan tahay wax aad iyo aad muhiim ah because waxaan noqday qof awood u leh inaan macnaha colaad maanta meel ay ka jirto in aan maanta aan garab ka geysan karo oo macnaha wax ka xalli karo dhinac walba ay ahaato. way jiraan ani awooyaasheeda ku dhamaada aftiyaasha adeerayaasha dad badan ku waayay oo inta lagu soo tiri karin. waa uu mahadsan yahay wariyaheena Mahad oo warbixintaas nala socodsiinayay. ganacsatadii ku tiirsanaa miyiga gobolada Jubbooyinka ay ku ganacsanayeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xilligan wajahaya shaqo yari kadib markii abaarta ka jirta goboladaas ay leysay inta badan xoolihii. ganacsatadan oo suuqyada magaalada ku iibin jiray hilibka xoolaha iyo caanaha ayaa qaarkood shaqooyinka isaga tegay kadib markii uu suuqa ku xumaaday halka kuwa kalena aysan dhaqaale ku filan ka soo saarin. iyadoo dalka oo dhan maciishada ay tahay mid qaali ah ayay haddana xaaladan waxa ay sii kordhinaysaa duruufta nololeed ee dadkan haysata. Hiba Maxamed oo Kismaayo ku sugan ayaa ka soo dirtay warbixintan. abaaraha daran ee ka jira gobolada dalka gaar ahaan tan Jubbooyinka ayaa saameyn xoogan oo dhinaca ganacsiga ah ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ka jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose maadaama qaarkood ay ku tiirsanayeen reer miyiga. Maxamuud Xasan Cabdi oo in ka badan 10 sano kawaanle ka ahaa suuqa magaalada Kismaayo ayaa sheegay in abaartan oo kale aysan soo marin halka uu ku nool yahay ayna tahay markii ugu horeysay saameynta abaarta laga dareemay magaalada Kismaayo. hadda aysan u shaqayn sidii hore tan iyo markii ay abaartu ku dhufatay deegaanada miyiga ah. waxa uu xusay in kawaanka hadda ay maalintii ku gowracaan in ka yar kala bar intii ay hore u gowraci jireen sabab la xiriirta qiimo sare oo ay ku soo iibiyaan suuqa xoolaha ee Kismaayo oo xoolaha loo keeno dhif iyo naadir. Maxamuud ayaa tilmaamay in maalmaha qaar aysan shaqaynin maadaama ay waayaan xoolo ay soo iibiyaan taas oo keentay in meesha ay ka baxdo biilka reerka isaga iyo dhowr qof oo kale oo kawaanka kala shaqaysa. run ahaantii markii hore qiimahan ku soo iibsan jirnay ma ahana qiimo kale ayaan haddana looga iibiyaa anagna aan sii iibinaa. marka hore waxaan ka heli jirnay saylada suuqa lagu kala iibsado
sidaa wada ogsoonnahayba wuxuu yimid abaarta ka jirta gobolka iyo guud ahaan geeska Afrika abaartaas oo aad iyo aad xoolihii loo laayahay ay u dhammaadeen abaartaas ayaana saameysay bilihii Oktoobar iyo Noofembar ee la soo dhaafay ayay dadka xoololeyda ah si aada u dareemeen abaaraha ayadoo la soo wariyay in meelaha qaar ay dadku ugu geeriyoodeen haraad dadka qaarkoodna la soo sheegay inay ka soo guureen halkii ay ku noolaayeen kuwaasi oo degan hadda aaga webiga Ibraahim Geedi Faarax oo ah xoolo dhaqato ayay abaartu ka laysay in ka badan 50 neef oo isugu jira lo iyo ari labadii bil ee la soo dhaafay waxa uu suuqa xoolaha lagu iibiyo Kismaayo uu iib keenay 2 neef oo lo ah si uu dhaqaalaha ka soo xarooda ugu iibiyo qoyskiisa oo ka kooban 8 caruur iyo hooyadood wixii ay cuni lahaayeen waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dadkii xoololeyda ahaa ay dhibaato xoogan u geysatay abaarta maadaama ay qaarkood waasheen kadib markii ay dhamaadeen xoolihii ay dhaqan jireen waxa uu Soomo u sheegay in lacagta uu ka helo iibka 2 neef ay u dhaxayso 4 ilaa 500 oo shilinka Soomaaliga halka markii hore halkii neef ay ku xisaabtami jireen dhowr milyan Ibraahim oo hadda ku nool deegaanka Laan Abaar ee duleedka Kismaayo in uu la soo cararo dhowr neef oo uga badbaaday xoolihiisa uuna keeno magaalada si uu ugu iibiyo biyo iyo baar wanaagsan maadaama uu ka mid yahay deegaanka ugu daran ee ay saameynta ku yeelatay abaarta xoolii aan ka soo go'ay dad iduunyaba isla markaana aan ka dhaqanay ag joogay ayaa maanta horteeda ku dhamaanayaan gaajo iyo abaar awgeed oo isla markaana waxba aan ka qaban karin oo boqolaal xoolaha lahayd isla markaana xoolihii aad uga dhamaadeen dad xataa waxaa jirto ay reer miyiga ka mid ah oo xoolihii ka dhamaad awgeed isla markaana u waashay bal si aan ilmahaygii aan u gaarsiiyo galaaska caanaha iyo sidoo kale bal biyaha ay iskaga dhaqdaan awgeed yaa u gaarsiin lahaa ayaan ku bedelanayaa maadaama ay in badan xoolo badan aan jeclaa ay abaarta iga laysay balse labadan waxaa u keentay si bal aan nafsadeydii iyo ilmahaygii bal aan ugu anfaco sidoo kale abaarta ganacsiga ay saameysay ayaa waxaa ka mid ah dadkii ka ganacsan jiray iibka caanaha xoolaha ee ka iman jiray baadiyaha kuwaas oo hadda ah kuwa shaqo la'aan ah Faadumo Xasan Muuse waxa ay ku tiirsanayd shaqada iibka caanaha xoolaha muddo 6 sano ah laakiin markan waxaa soo wajahday shaqo aan joogto ahayn kadib markii ay gabaabsi noqdeen caanihii magaalada kaga iman jiray duleedka waxa ay Soomo u sheegtay in hadda ay mararka qaar u doonto meel aad uga fog Kismaayo caanaha ay soo waayaan halka marar qaarna ay soo helaan dhowr litir oo aan badnayn kuwaas oo ay sii iibiyaan dadka u baahan sidoo kalena aysan jirin shaqo kale oo ay ku tiirsan tahay nolosha qoyskeeda oo ka kooban 8 caruur ah Faadumo waxa ay tilmaamtay in ka badan 25 litir oo caano ah ay iibin jirtay maalintii suuqa oo ay macaamiil fiican u haysatay balse sidoo kale ay jiraan haween iibinta caanaha ku shaqaysan jiray oo aan hadda wax shaqo qaban kuwaasi oo siyaabo kala duwan u dabar waxaan ka heli jiray deegaano aan saas uga fogeyn magaalada haddana xoolihii ayaa meel fog u guuray way jirtaa oo saameyn dhaqaale ayay nagu yeelatay sababta oo ah waxaan ka ganacsan jiray oo noloshanada ka raadsan jiray caanaha kuwaasi oo hadda lawa ciriiri ku jira ama gabaabsi ku jira saas sabab la xiriirta xoolihii oo abaartii ay in badan oo kamid ah ay aafaysay ama ay laysay intii ka soo hadhayna lala raadsaday meel ay biyo iyo baadba ka heli karaan weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya doorashooyinka ka socda weli qaybo ka mid ah dalka ayaa maraya heer gabagaba ah iyadoo maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ay yihiin kuwa ay ku harsan yihiin kuraas ka mid ah golaha shacabka lana filayo in la soo dhameystiro qoondada haweenka ee dastuuriga ah ayaan gaarin heerkii loogu talagalay oo ah 30% taas oo sidoo kalena ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyadoo beelaha leh 3 kursi laga doonayo in mid ka mid ah ay ku soo baxdo gabar taas ayaa ka dhigan in 275 xildhibaan ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay haweenku ku leeyihiin 82 xildhibaan oo maamulada ay u kala qaybsadaan sidan Koonfur Galbeed 22 haween ayaa laga doonayay Somaliland 14 haween Jubbaland 13 Hirshabeelle Galmudug iyo Puntland min 11 xubnood oo haween ayaa laga rabaa golaha shacabka inay uga jiraan halka beelaha banaadiriga ah laga doonayay hal gabar taas oo hadda ka mid ah xildhibaanadooda haddaba qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo ku kala sugan magaalooyinka Gurceel Kismaayo
gaalkacyo beledweyne iyo muqdisho ayaa ka dhiibtay aragtidooda ku aadan sida ay tahay in loo ilaaliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya. qoondada haweenka waxaa lagu ilaalin karaa inay madaxweynayaasha odayaasha ay kasadaan qoondada haweenka inay ilaaliyaan. qoondada haweenka hadaa la ilaaliyo walaal wax badan ay hagaagayaan, wax kasta way imaanaysa. salaasa haweenka loo soo xiraa oo ragga haddana la siinayo saasoo kale walaaqadu ay waxaan leeyahay halaga joogsado. hadaa ka dhiibto qoondada haweenka horti aad rumaysan lahay oon xaqiijin boqolkiiba soddonka ah. waxaa muuqata in kuraasta dumarka si aad u doob loogu haayo aan xaqiijinaynin sida odayaasha dhaqanka oo intaas lagu dhaayo. mar walba ay duubayaan kuraasta dumarkay dhaqaalo u adeegsanayaan, waayo dumarka Soomaali dhaqaale ma haystaan, raggu dhaqaalo ay haystaan. marka inta badan waxaa dhacday in kuraastii dumarkay lahaayeen inaa rag ay kusoo bixeen. marka waxay tahay in la sameeyo in odayaasha dhaqanka intaas soo gala inay xaqiijiyaan qoondada haweenka boqolkiiba soddonka ah, inay gabdhaha Soomaali istaakuleeyaan, waayo gabdhaha dhankooda waxay ka jirtaa inay istaageerayeen. marka in gabdhaha Soomaali taageeraan oo gabadhii qofka soo sharaxda inay qalfgalayaan, marka inay ku dadaalaan sida gabdha Soomaali inay leeyihiin talaadada dadka sida beelaha kaleeto oo dhahayo gabadh laga matalayo oo kaleeto inay gabdhaha Soomaali fursad siiyaan, waayo dowladnimada dalka ayaga ka shaqayn karo maadaama ragga ka daacad badan yihiin oo si wanaagsan u shaqaynayaan qarannimadooda si aanay dalkooda horumaro una qabanayaan dadka Soomaaliya wax wanaagsan. marka waxaan dhihi lahaa haweenka Soomaali fursad hala siiyo ay ku shaqeeyaan oo dalkan ugu taladooda qayb dadka tariifka qayb uga noqdaan oo kaleeto. waxaan ugu horumari karaa in dumarku markaaba iska kaashadaan iyaguna isaamaan markasta marxalada lagu sugan yahay. waxaan ka sii muhiimsan in madaxda maamul goboleedyada ay si wanaagsan u daryeelaan qoondada boqolkiiba soddonka ah ee haweenka inaa mara kale kuraasta la xirin ama xoogahay doorashada hal qabtee door weyn laga siiyo dumarka. anaga haddaan u fiirsay ismalihii qoondada dumarka xaggeeda in waxaan u moodaan madaxda maamul goboleedyada daran gaara markaasi ee kuraastooda ay ku xirayaan ama qolo kale ay siinayaan, halka dumarkuna ayaguna aysan markaasi isi joogin. marka qofkii haweenka ee boqolkiiba soddonka ah lama xaqiijin karo sababtoo ah qoondada haweenka doorashada hadda socota doorasho oo waxay tahay inkastoo tahay haweenka qoondadooda ma lagu xaqiijin karo doorasho dadban oo inta badan doorashada hadda haweenkooda oo qayb kama aha qoondadoodana aada loo xaquuqay. saddex haddii meel waxaan ka yahay aniga qoondada haweenka boqolkiiba soddon waa la helaa. marka koowaad ergada lasoo xulayo ergada qofka soo xulaysa bulshada inay kusoo darto gabar. marka labaad guddigu inay ku cadaadiyeen ma heelkadin daraastoodana aan raggeena siinin. golaad kibaarka madaxweynaha leeyahay madaxweynuhu inuu ku booriyo ahaantiisa inay gabdhaha ay helaan boqolkiiba soddon qoondadooda oo marnaba aysan dib uga dhicin. laakiin aniga aan filan bii muuqata hadeer ma heli karaana dee waayo hadda gobolada dhammeeda hadda waxay ka maraysaa dabadaba. marka anigu laaka waxaa qoondada haween boqolkiiba soddon sooma baxaysa insha allah. laakiin haddii doorasho furan la gaaro insha allah waxaan filaya in qoondadeena haweenka boqolkiiba soddon iyo midka dhan baan heli doono. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma. waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah maxay tahay in la sameeyo si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee muhiimadda nabadda. nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefanada idaacaddan. mahadsanidin.